السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلامتي والله ليال ميل كستو aad joogtaan waa briefingkii hadda joogtada ahayd galab kasta qabay jiray baabuurkii aan fariinka lahayn waa dhaqaaqay waa socdaa gobolada u gudbay oo gobolada see ku gaaray baabuurkan hal wado haysto xamar ku dhaxtaalle wuxuu ugu gudbay waxa weeye annaga yaa soconna waxaan tagaynaa goboladii waa ka imaanaynaa qaar baa waxay maqleen cudurka la yiraahdo coronavirus ayaa wuxuu ku jira magaalada xamar ka carar usle ilaa wuu sidaaba goboladii kale geeyay markuu geeyna dadkayba ku dhacay waan ognahay anaga diinteena waxayna amrayso meel haddii wax ka dhacaan ha isku tagin haddii aad ku jirtana ha ka bixin laakiin ma samaynayno ma qaadanayno awaamirtaas uu nabigeena calayhi salaatu wasalaam na siiyey taas marka waxay keentay in cudurka faafo meel kala gaaro walaal ha noqon oo sabab ha u noqon dilka aabbaha hooyada xaaskaaga awowey ayayadaada deriskaaga bulshada ha u noqon dilaaga qarsoon ha noqon maxaa lagaa rabaa sidaad dilaaga qarsoon u noqon waa inaad si toosa u raacdid tilmaamaha lagu sheegayo oo bahda caafimaadka ay sheegayaan oo culimada ay sheegayso oo qof kastoo bulshada jooga uu sheegayo taasoo ah taxadar badan inaad samaysid inaad qaadatid maaskiga inaad qaadatid gacmaha inaad si fiican iskaga dhaqdid meelaha taataabashada inaad iska daysid haddaad qufacaysid halkan ku qufac inta ku qufac samee maxaa kaloo lagaa rabaa haddaad calaamada isku aragtid waxaad u cadaa 449 tilmaamo fiican ay ku siinayaan oo raaca kuwaas laakiin haddii aad iska indhitirtid oo inkirtid cudurkan inuu jiro waxaad ogaanaysaa deriskaaga ka arkaysaa saaxiibada ka arkaysaa gurigaagaan maanta dambe ka arkaysaa marka ha noqon waa ku celinayaa ha noqon dilaaga qarsoon taas halkaas uga bax waxaan kaloo rabaa inaan ku daro hadda dadka waayeelka ahaa waataanu isla garanay maalindhood inaan difaacno oo ka reebno waxaan kaloo isla garanay tan inay noqoto quruxdaadii faashinkaagii iyo badbaadadaadii waad ogtiin ololo fiican baa ka socda maanta magaalada muqdisho waxaan rajaynaynaa ololahaasi inuu goboladana gaaro maxaa lagaa rabaa marka dhagahaaga fur waxa lagu leeyahay oo lagu tusada haddii aad diiday xataa ayadii baa lagu siinaya maaskiga lagu siinaya waxa lagu leeyahay saas samee baabuura lagu soo diray dadaa waqtigooda soo horay hadda walaalayaal waxyaa laga dhigin hal bacad lagu lisayaan ka dhigana waxaan ka dhigaynaa ya waxaan qaadano ku guuleysano ilaahay waa ghafuurur rahiim muslimiina nahay wa kaana bil mu'miniina rahiima ilaahay asaga yiri raxmadaas ilaahay aan ka sugaynaa laakiin haddaan awaamirtii anagu aan fulin oo aanan qaadan oo ilaahay aanan baryin oo dadaalkii iyo hashii wixii lagu dabri lahaa aanan samaynayn hadda maxaa sugaysaa waxay sugaysaa aayadaas oo ku celcelinaya walaa tulquu biyadiikum ila tahlukati wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin waalidka konton jirka iyo ka badan ah oo masaajidada tagahaya maalin halkan culimadu waa ka iftoodeen ha isku imaan waajib kugu ma aha salaada jamaacada leeyahay hadina maqashada laga rabaa waxa yaab leh waxa weeye madaxadeegeena waa ogahay madaxadeegeena laakiin anaguna daalimayno madax haduu adeeg yahay anaga waxa sameeynaa taraabaniya soo qaadanaynaa madaxa duuleelinaayay dhagaha duuleelinaayay oo aan rabno inaan dhagaha dhaxad idin galino taasna waxa weeye ka daalimayno inaan wacyigelinta badno aan wacyigelinta badan oo aan wadno inaan joojino marna ka daalimayno ilaa aan meesha aan higsanayno aan gaarno maxay tahay meesha higsanayna baaburka inuu break yeesho naga istaago aan gadaal u soo celino halkaas haddaan sameeyno naftii ummadeena qarankeena waa badbaadinayna wadamada deriskeena waa badbaadinayna adduunka dhanna waa badbaadinayna marka mas'uuliyad anaga dhan waxa naga saaray adduunka oo dhan nafteena marka haddaan badbaadino waxaad ogaanaysaan badbaadadaas waxay u gudbaysaa deriskaagi iyo adduunkii oo dhan dawlad kastana mas'uuliyadaas qaadanaysa shacab kastana mas'uuliyadaas u qaadanaya hadda shacab ahaan waxaan rabnaa inaan mas'uuliyadaas qaadano yaana noqon wadanka u dambeeyay oo covid-ka uu ku haray haddaan saas noqono maxaa nagu dhacaya diyaarad noo imaanaysa male markab noo imaanaya male baabuur noo imaanaya male kuwii la takooraan noqonayna annaga dhan hadda walaalayaal waxna gaarsiinina kuwii la takoor inaan noqono oo dhaqaaliheena maanta uu baaba'o haddeer sidaan hoos u dhac ku jira dhaqaalaheena inuu baaba'o dad badan inay naga dhintaan
dad ban inaga jiradaan waayeelku inuu naga baaboo dhallinyarada inay naga wada jirto jaamacadaheena inay xirmaan iskuulaadkeena inay xirmaan dugsiyada quraanka inay xirmaan gaadiidku wax dad uu raaca inuu waayo dukaamada wax ka gata inay waayaan cuntadii beeraleyda ay soo saari waayo beerihii aan ku talagalin inaan soo saaro wadanka ciidamadii jooga inay naga baaba'aan difaaceeni uu aad u yaraado madax iyo shacabba in dhibaato badan na gaarto ma anfacaysa taas waa inaan ismaqalno waa inaan isdhegaysano waxaan xusuustaa anigu aan soo gaaray cudurkii furuqa qofka u dambeeyay adduunka laga helay nin Soomaali ahaa bilaa calayk yaana mar dambe soo celin in covid-ka qofka u dambeeyay laga helay uu Soomaali noqdo arrinkaasi arrin anfac maahan ayadoo aan 50 sano ka soo wareegtay maantii aan kaas meel ku soo tuurnay ya 30 iyo waxaan malanayaa 3 sano inay taa waxa ka soo wareeg ma anfacaysa aan dagaalano aan wax maqalno maanta waxa way wacyigelinteena waxa ku soo gabagabeysaa ha noqon dilaaga qarsoon wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh